السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. run ahaantii waano iyo wacdi salaadii ka hor baa laynoo jeediyey walaalayaal. laakiin mar haddaan magaalada imanay inaan dadka salaano oon iska ziyaarano oo nila kulanno, annakay farxad noo tahay. run ahaantii sheekhaa inala hadlay qabla duhurkii, inaan ka daba hadlay runtii aan uma jeclayn, laakiin haddana mar haddii aan ziyaaro u imanay waa in yar waa isbarharujinaynaa. hal mid un baan odhan, nafteydana aan u sheegay, ininkana aan inii sheegay, sida masaajidka dhexdiisa muslimiintu ay ku yihiin waa inay ku ahaadaan masaajidka bannaankiisana. masaajidka dhexdiisa sideen ku nahay? marka koobaad, qofku maskiidka marka uu imanayo wuxuu soo qaataa dhar aada u qurux badan oo daahir ah. khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin baa ilaahay yidhi. marka labaadna qofku uu soo tahaaro qaataa. salaada furaheega buu nebigu yihi waa tahaarada. qofkaan soo tahaaro qaadan buu nebigu yihi salaad ma leh. qofka salaad aan lahayna buu nebigu yihi diin ma leh. qofka ammaano aan lahayna iimaan ma leh. salaaduna diinta islaamku waxay ugu jirtaa halka kurku bini aadamka ugu jiro. laa salaata liman laa tuhuura lah, walaa diina liman laa salaata lah, walaa iimaana liman laa amaanata lah. inamaa mawdicu salaati fi ddiini ka mawdici alra'si cala aljasad. fi sunan atabari ayuu ku sheegay raxmatullaahi calayh. salaadu markaasi waa udubdhexaadka diinta islaamka. axkaamta islaamka in badanaa nabigeena sal alla alay wasalam jibriil baa lagu soo dhibo, asagoo dhulka jooga nebiga loo keenay. amaa salaada may nebi maxamed baa loo yeedhay calayhi salaatu wasalaam. isagaa daareegta nebi maxamed ilaahay uga soo qaaday, deedna nebigu inaku inoo keenay. marka horena waxay ahayd 50 salaadood, markii dambena 5 baa laynooga dhigay, camalkiina 5 baa laynooga dhigay, thawaabkiina 50 baa laynooga dhigay. man jaa bilxasanati falahu 10 amhaaliha. salaadu markaa waxay dhahay culimmadu waa diintii islaamka oo dhan baa salaadii ku dhan. mafhuum diin oo dhan waxay ku dhan tahay waa salaada. soonkii baa ku jira, oo xajkii baa ku jira, oo xuquuqdii bini aadankaa salaada dhexdeeda ku jirta, oo dikrigii baa ku jira, oo tilaawadii qur-aankaa ku jirta, oo istikfaartii baa ku jirta, oo sadaqadii baa ku jirta, oo caqiidadii iyo iimaankii baa salaada ku dhex jira, oo mucaamaladii iyo mucaasharadii baa salaada ku dhex jirta. diintii islaamka oo dhan meesha keliya ee macyaarka salaadu waxay tilmaamaysaa diintii islaamka oo dhan. caqiidadii baa salaada ku jirta, oo qofku 10 daqiiqo ee imaamka gadaashiisa qofku uu joogo waxaa laga dalbayaa qalbigiisu inuu xaadir ahaado, o ilaahay ku mashquulo, uu meel kale qalbigu u jeesan. meel kale inuu qalbigu leexdo la dooni maayo. taasi waa kow. sahwigu uu jiraa, oo dee salaadii waa shaydaanka inagu dadaalaya si uu salaadeena sahwi uga dhigi lahaa. oo marka horeba qofka shaydaanku wuxuu kala dadaalaa qofkan inuu hado muslim suurada oo salaadii masjidkana ku xidhnay. haddii ilaahay uu soo dhaafiyo qofku masjidka soo galana
shaydaanku ma hadhee wuxuu ku dadaalaa qofka salaadiisa inaanan laga aqbalin. leanna waxaad arkaysaa mid tukanaya laakiin salaadiisa jahli buu ku tukanayaa, culimmadiina way ag fadhiyaan mana weydiinaya masaa-isha ka qaldan. haddana haddii uu dadaalo culimmadii intuu masaa-isha diini weydiiyuu ka saxdo oo loo saxo, haddana shaydaankii hadhi maayo, wuxuu rabaa qofkaasi salaadiisaasi inaynan sahwi ka bixin. udkur kada udkur kada udkur kada buu le waxaa xasuuso ilaa uu qofku salaadii ka baxaba isagoo ka warqabin inta rakacdood ahaydba. marka qalbigan waxaa loo baahan yahay salaada dhexdeeda in lagu xaadiriyo. waa meesha culummadu ay yidhaahdaan luqmaan alxakiim markuu inankiisa la dardaarmayo waa kii ku lahaa majaalis fara badan ayaan la soo fadhiistay, nebiye ay fadhiyaan, 8 kelmadood baan ka soo faa'iidaystay. wuxuu yihi 4 waxa weeyaan buu yidhi, markaad salaada tukanaysana qalbigaaga ilaali, cunno markaad cunaysana calooshaada ilaali, dad markaad la joogtana carabkaaga ilaali, aqal xaqanaas markaad joogtana indhahaaga ilaali. labana ha iloobin, labana ha xasuusan. labada uu ku yidhi maaragtaane ha xasuusan waxa weeyaan wanaagga dadka aada u samaynaysa ha xasuusan, isaa'ata annaasi ilayka, dhibaatada dadku adiga ay ku geysanayaan ha xasuusan. labana ha halmaamin buu ku yidhi allah wadaara alaakhira, ilaahay ku abuurina marna ha halmaamin, daarta aakhireeda u socotana ha iloobin buu ku yidhi. salaada markaan ku jirna waa meesha la doonay qalbiga in la ilaaliyo, oo halkaasi waa caqiidadii. xajkii baa salaada ku jira bay culimmadu yidhaahdeenoo qofku marka uu halka uu u jeesanayo waa qibladii. qad naraa taqaluba wajhika fi samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha baa nabiga lagu yihi sal lla ly slam, fawalluu wujuuhakum shatra almasjid alxaraam waxayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum. nabigu sal alla alay wasalam qudus bay marka hore saxaabadu u jeesanaya masjid alaqsa, laakiin nabigu wuxuu jeclaa in maka looga dhaga qibla, leanna waa maqaamkii nabigan uu ku dhashay weeyaan, waana maqaamkii nebi ibraahim calayhi salaam uu dhisay weeyaan. deedna ilaahay caza wajalla isagoo manshaha nebigiisa mar walba u raacaya ayaa ilaahay ku yidhi mar walba waan u jeedaa inaad xaggayga soo eegaysee ood xagga samada aada soo eegaysee, maanta laga bilaabaa qibladaad raalliga ka ahayd baan kuu jeedine xagga u jeesa baa nebigu lagu yihi. adiga iyo dadka muslimiintuba qibladiinu maanta laga bilaabaa waa maka. nin saxaabada ka mid ahay oo ansaari ahaa oo salaadii duhur nebiga qiblada maka kula soo tukaday ayaa qabiilkiisii halkay deganaayeen buu u yimid isagoo u sheegaya aalaadkan inaku aan haysanay muwaasalaadka iyo itisaalaadkan caalamigana berigaa ma jirayne, qof baa intuu risaalad loo dhiiba dadka u geeni jiray ama fariinta gaadhsiini jiray, wuxuu u yimid qoyskiisii oo salaadii casar bali 2 rakacana ay u jeesteen quds ayuu aayadda korkooda isla taagay. markaasuu yihi qibladii waa la xawiilo, waxa loo xawiilay maka. waxaa la yidhi fii ahnaa'i sujuudihim, ayakoo sujuudsan ayay qiblada maka usoo jeesteen baa la yidhi, sida ilaahay nabiga u adeecaya saxaabadu. eeg salaada soonkii baa ku jiro, inta qofku salaada uu ku jiro cunno ma cuni karaa, biyana ma cabi karaa, ay jabi salaadu. ada alxuquuq baa ku jira salaada dhexdeeda, waa kii nabigu lahaa liinuu biaydi ikhwaanikum, safka markaad istaagaysaan walaalihiin gacmaha u dabciya buu nabigu yidhi. mucaad binu jabal markii laga soo cawday inuu dadka salaada uu ku dheereeyo, nebigu mambarka intuu istaagay buu ku yidhi waryaada waxaa inagu jira buu yihi rag salaada ummadda iyo diinta ka firxinaya oo ku adkaynaye, midkiin markuu ummad salaad uu ka bixinayo ha u khafiifiya buu nebigu yihi, maxaa yeelay gadaashiisa waxaa taagan kii da-da weynaa iyo kii daciifkii iyo kii bukay iyo kii muraadka lahaa. salaada dhexdeeda buu nebigu ku ilaalinaya xuquuqda bini aadanka. xataa mararka qaarkood nebigu wuxuu odhan jiray waxaan jecelahay salaada inaan dheeraysto, laakiin markaan maqla buu nebigu yihi ilmaha yar oohintiisa, hooyadii oo gadaasheeda ku tukanaysana ay walwalka iyo walbahaarka ay dareemaysa markaan xasuusto, ayaa salaadii aan islahaa ha dheeraysid waan gaabsadaa buu nebigu yihi alayhi salatu wasalaam, ummadda waan u gaabiyaa. xuquuqdii baa salaada lagu dhex ilaalinayaa, xuquuqdii dikrigii baa ku jira, tilaawat alqur-aankii baa ku dhex jirta salaada, qalbigiio xaadira la rabaa in lagu tukado. salaada markaa maskiidka qofku markuu soo galana dee maskiidka dhexdeeda qofku afcaal xun muu la imanaya may. hataa 2 qofoo hadalka kor u qaadaysa hadduu arko wuxuu odhan war meeshu waa maskiida xishooda. iska daa qof dagaalamaya iyo qof maskiidka dhexdeeda been ku sheegaya iyo mid bolitig ka sheekaysanaya, warkiisa iska reebba. xataa ka qur-aanka akhrisanaya baa layidhi maskiidka dhexdeeda markaad joogto
hawsoo akhriso dadka salaada tukanaya ku dhibine sida masjidka aan ku dhaxnahay baan u baahannahay marka inaan banaanka ku ahaano masaajidka dhexdiisa been inaad ku sheegtaa waa mustaxiil banaankana been ha ku sheegin masjidka dhexdiisa inaad qabyaalad kaga sheekaysaa waa mustaxiil banaankana qabyaalad ha kaga sheekayn masjidka dhexdeeda inaad ummadda aad ku dhacdaa waa mustaxiil banaankana ummadda ha ku dhicin masjidka dhexdeeda inaad qof ku dulmidaa waa mustaxiil banaankana dadka ha ku dulmin masjidka dhexdeeda qof inaad u itaal sheegataa waa mustaxiil banaankana ummadda ha u itaal sheegan suuqu lmuslimiina ka musallaahum cumar binu khadaab baa odhan jiray suuqa muslimiintu waa sida masaajidoodo kale ayay yihiin buu yidhi sida masaajidka dhexdiisa qofka muslimku uu isku dhowrayo uu iimaankiisa u ilaalshanayo uu salaada u ilaalshanayo uu cibaadadiisa u dhowranayo uu ilaahay u baryaayo u tawaaducayo banaankana waa inaad ilaahay u tawaaducdaa yaa cibaadii ina ardii waasicatun fa iyaaya facbuduun baa ilaahay yidhi ilaahay baa la addoommahaygiio dhulkaygu waa ballaaran yahay dhulkana ilaahay baa iska leh ina alarda lilah arlada ilaahay baa iska leh markaa masaajidka dhexdeeda saad ilaahay ugaga baqayso waa inaad meheradaada ilaahay dhexdeeda ugaga baqdaa xaaskaada iyo ubadkaaga markaad la joogta waa inaad ilaahay kaga baqdaa safar haddaad tahay safarkaaga ilaahay waa inaad kaga baqdaa tijaaradaada waa inaad ilaahay kaga baqdaa xafiiska aad fadhida ilaahay waa inaad kaga baqdaa mas-uuliyadda ummadeeda ku saaran intay dooniba ha leekaatee waa inaad ilaahay kaga baqdaa waana gaayat likhlaas inuu qofku meel kastuu joogaa ilaahay uu ka baqaa wa gaayat likhlaas waana halkii asxaabta nebi maxamed ay ka gaadhay iimaankoogu ka gaadhay weeyaan ibnu cumar radia allahu canhuma ayaa nin ari la joog u soo agmaray markaa buu ariga caanaan uga baahanay caana naga sii markaabuu caanihii uga liso uu siiyey markaa buu yihi bal ha jarabtid oo ninkan ha ikhtibaartid markaa buu yihi urgac nooga qal markaasuu ariga anigu ma lihiye sayidkaygii baa loo raaciya alghanam baan ahay anigu markaasuu yidhi de sawdiga caanihiisiiba noo na siiyey ma cadkiisana noo qal markaasuu yihi caanaha waa lay idmay socotada inaan u liso laakiin neef inaan u qala layma idmin buu ka yidhi u jarabay marka uu ikhtibaarayay wuxuu yidhi waxaad tidhahdaa dhurwa baa iga qaatay de soo dhurwa ma tidhahdaan mise waraabaa tidhahdaan waa isla meeshii uun markaasuu ku yidhi ila ninkii sayidkii xoolahan lahaa ku arki maaye xoolaha markaad hoysana neefkii markuu ka tagu waayo uu ku wareysana waxaad ku tidhaahdaa dhurwa baa iga qaato oo iga dafay ku dheh markaa buu ku yidhi ninkii reer baadiye rabbul ghanam hadduusan i arkayn sow rabbigay arki maayo buu ku yidhi ninkii sayidkii xoolaha lahaa i arki maayo waa runta fa ayna allah sow ilaahay arki maayo haddana halyaha halkeen ka gali meel ilaah looga baxsan may jirtaa may ibnu cumar uu madaxuu sidaa u ruuxo wuxuu yidhi kelmadii buu ibnu cumar kusii celcelinayay ilaa ninkan uu jarabayey u ikhtibaarayay muraaqabadiisu intay leeg tahay buu eegayey markaa buu ihi fa ayna allah fa ayna allah fa ayna allah yani waxaan ka wadaa islaax zamankii nabigeena sal alla alay wasalam iyo qarnigii ummaddu ay wanaagsanayd halkaasuu ka gaadhay ummaddu inay hagaagto ilaa ka miyiga buuraha dhexdooda xoolaha ku dhaqanaya inuu ku xisaabtamo yidhahdo ilaahay bay arkaayo ilaahay baa aniga i maqlaayo inankana masaajideeni marka lasoo galaa lagu leeyahy kabahaga kiishka ku rido ayaa lagaga ridanaya hor ayaa lagaga ridanaya waa muslim inta badan waa muslim jamaacadadan dacwadda tabliiqa waa taqaanaan oo niman bakistaaniina markaa waddankayga jabuuti ayay maalin meel tuulay joogeen oo markaa dadkay wacdinayeen oday baa ku yidhi war anaku 100% muslim baan nahay maxaad naga soo doontay ragga ku dhaw iga yidhi waa hadalkeennii dee soo maha soomaalida 100% muslim ilaahay naga dhigay marka nin caalima ayaa jamaacadda watay xikmad badnaa wuxuu yidhi 100% haddaad muslim tihiin masaajidada markaad galaysaan kabihiina banaanka maxaad ugu soo dhaaf weydeen buu ku yidhi kan kabaha laga ilaalinaya waayo waa cali waa cumar waa maxamed waa mustafa waa mukhtaar waa mina inaka muu naga mid yahay haddaad muslimiin aad tihiin 100% way fiicanto maba diidanine maxaad banaanka kabihiina ugu soo dhaafi weydeen buu ku yidhi kaa kabaha banaanka aad ugu aamini weydeen aad uga aamin baxdeen inaad kabihiina banaanka ku soo dhaaftaan ee isagana maaragtaane qalbigiisu intuu dhintay masaajidka ilaahay ka xishooni waayey u soo galaya masjidka dhexdiisa dadka inuu ku xado kaasaa rabnaa siduu islaaxi lahaa buu yidhi ininku waad dadkii wanaagsanaa baa tihiin inima socono ininka buu yidhi laakiin waxaana leenahay kan saalixow
muslix noqo oo dadka islaaxi. marka allah inagu anfaco. marka sidaan masaajidka dhexdiisa ku nahay inaan banaanka sidaa ku ahaano shaqo intee leeg ba u baahan tahay? may fahamteen halkaan ka hadlayo? shaqo intee leeg ba u baahan tahay? cumar binu khadaab radia allahu canhu suuqa madiinuu soo galay, dukaanadii oo furan, dahabkii oo banaanka yaalla, dharkii oo banaanka sidaa u waran, oo muslimiintuna ay masaajidka u aguugeen. aadaankii ma dhicin, laakiin xaana waqtu salaa, salaada xilligeedii baa dhowaatay. cumar binu khadaab masjidku sidaa usii eegaya, aguuga muslimiintu ay aguugayaan, waxaa kacaysa gadaashooda siigadaa kacaysa. markaasu cumar binu khadaab wuxuu raggii la socday buu ku yidhi, ninkii jecel inuu arko aayaddii qur-aanka oo shaqaynaysa, rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illah wa iqaami asalaati wa iitaa'i azakaa yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu walabsaar. aayadda qur-aanka practical oo shaqaynaysa ninkii raba inuu arkow waa kuwa asxaabu maxameda eega buu yidhi, siday maskiidka ugu sii aguugayaan. innaga maskiidka markaan soo galayna hal baan u soo galnaa, markaan ka baxaynana jam. masaajidkii baa jaama laguna yar fadhi. war waddada iyo suuqyada jaam lagu yaqaanay, maskiidkii waxaa lagu leeyahay masaajidka iridiisii baa jaame sheekh iska yar fadhi, iska yar fadhi. masaajidka waxay ahayd in hal looga baxo marka la imanayna in jaam lagu soo galo ayay ahayd. maadaama masaajidka hal aan u soo galayno, jaamna aan kaga baxayno, waxay ka dhigan tahay acmaasha masaajidka dhexdeeda aan ku hayno kuma kalsoonin, ee waxaan ku kalsoonahay meheradeenna ashyaada taalla ku kalsoonahay. allah ina fahamsiiya inaan masaajida sidaa ku nahay dhexdiisa banaanka aan ku ahaanaa, waxay nooga baahan tahay shaqo dheer. shaqadaana culummada keliya lagu hadlayn maaye, dhammaanteen waxaa la rabaa inaan gacmaha isqabsanoon diinteennan siday dibadda uga muuqan lahayd, aqaladeenna uga muuqan lahayd, tijaaradeenna uga muuqan lahayd, aswaaqdeenna uga muuqan lahayd. waa inaan shaqadaa kulligan u wada kacna weeyaan. insha allah dhahada waa nagu dheereeye, raalli ahaada. waqti dahira weeyaan, waa xilligaad qada tegayseen, aad qayluulo tegayseene. insha allah waa nila joognaa. allahna inagu anfaco, diinta dadaalkeygana aan u wada kacna. insha allah dhahada dembigeenna allaha dhaaf, dembiga waalidiinteenna allaha dhaaf, diinta allah inoo macaaneeyo, maralkeenna allaha shaafiyo, mawtaadkeenna allaha u naxariisto, amni iimaanka allah inoo ziyaadiyo. sala allahu calaa sayidina